markaad ku soo noqod wanaagsan filimkeena maanta wuxuu ka kabnaan doonaa 3 qayb waana 3 qayb oo aan shaqo isku leen oo soo kala baxay waqti kala duwan haddii aad jeclaysataan waan soo raacin doonaa qaybaha dambe haddii uu sareeyo saamaxo bilow filimka waxaan aragnaa professor lagu magacaabo Joseph Heater waxaana ku fadhiyaa gaarigiisa isagoo firfirinaya iyo sawiradooda waxaan eeyahaasi ayana ku isdaba safan oo isdaba taagan waxaan u imaanaya gaari xamuula isagoo gadaashiisa soo istaagaya waxaana ka soo degaya dalawarkii isagoo soo aadaya dhanka kaynta si uu markaas masquul u galo ninkii professorka wuxuu soo qaadanaya qore isagoo doonaya inuu toogto ninkii dalawarka ahaa markaa waxaana la barayaa 2 gabdhood mid waxa lagu magacaabaa Jenny halka mid kale lagu magacaabo Lindsay labadooda waxay ahaayeen American balse hadda waxay yimaadeen dalka Jarmalka waxaana laga soo wacayaa xalfadiigo doonaya inay xalfadaasi aadaan si ugu soo damaashaadaan ma jecelina filimka ka dhaxgalo balse haddii aad weli muuqaalka iska daawanayso aad noo la gareey muhiim ay noo tahay haddii aad nagu cusubtahay nagu soo biir kadibna way soo bixin iyagoo soo qaatay gaarigooda inkastoo ay labadooduba safri jireen markasta balse wax fikradda kama haystaan Jarmalka waxayna joogaan habeen iyagoo doonaya inay caawa soo baashaalaan waxayna dhaxmariyaan kaynta dhexdeeda siday u socdeen waxa ka luntay wadadii ay rabeen wayna soo laabteen iyagoo soo celiyay gaariga balse seebdaro baabuurka ay wateen waxa ka bajartay cagta waxayna markaa isku dayaan inay wacaan dad u dacdeer gaarigooda laakiin meeshaan waxay ahayd meel kayn dhexdeeda ah mana lahayn wax ateena ah waxayna ku xayirmeen kayntaan cidlada taasoo aysan jirin cid joogta halkan waxayna markaana go'aansadeen inay gaarigooda iska galaan oo ay gaarigooda ku jiraan intay caawinaad ka helayaan laakiin intii halkaasi joogeen waxaa agtooda soo maraya gaari balse waxay markaas ku dayeen inay gaarigaani garab ka helaan nin odaya ayaa gaarigaasi saarnaa laakiin waqti xadirkaasi way adkayd qaabkii ay markaas isku fahmi lahaayeen laakiin gabdhaha waxay ka shakiyeen ninkii odayga iyagoo markaas aanan fahmaynin luqadiisa waxayna markaas ku leen iska bax adeer waxba kaama rabnee intaas kadib waxay kasoo degeen gaariga iyagoo markaas raadinaya dad caawiya wayna soo baxeen waxayna markaana meel dheer ka arkeen guri inta aysan soo gaarin gurigii waxa waqti xadirkaasi soo daadanaya roob wayna soo cararayaan iyagoo markaas soo galiya gurigii laakiin waxay garaaceen albaabkii balse waxa albaabkii ka furaya ninkii professor Joseph ah waxayna markaas u sheegayaan dhibkayga haysta iyagoo markaas u sheegay inay xalfad u socdaan oo markaas halkaan gaari u bajaray waxay markaas doonayaan in gaarigoodii loo dayactiro laakiin professorkii waxa uu ogolaanaya inay markaas soo galaan gurigiisa laakiin markii ay guriga soo galaan waxay halkaas ku arkayaan sawirro yaab leh markaan professorka ayaa weydiinaya idinka madalxiisyaal ayaa dhaheedeen balse gabdhihii mid ka mid ayaa markaas ugu jawaabaysa maya aniga waxaan ka imaanay New York waxaana halkaan u nimid inaan soo booqano waddanka Jarmalka waxa kale uu sheegaysaa professorka inuu markaas waco dadka hagaajinaya gaariyaasha si ay markaas gaarigooda degdeg ugu hagaajiyaan laakiin professorka dhag jal qumsiinaya isagoo iska tiriya kadibna waxa uu weydiinayaa ma leediin wax qaraabo ah laakiin waxay ugu jawaabayaan halkaan ku milin wax qaraabo ah laakiin wax halkaan ku leenahay saaxiibo kadibna professorkii waa uu baxaya isagoo markaas aaday jikada si uu markaas gabdhihii ugu soo qaado biyo ay cabaan laakiin professorkii gabdhihii waxa uu darayaa kiniini darooga ah markaan wax uu keenayaa biyihii gabadhii Lindsay waxay markaas bilaabaysaa inay cabto biyihii balse gabadhii kale ayaa markaas wax iska daadanaysaa biyihii markaan professorkii aad buu ugu xanaaqaya isagoo markaas ku qeylinaya gabadhii maadaama uu markaas uu ka fashilmay qorshihiisii waxaana markaas soo aadaya dhulka hoostiisa isagoo markaas cirbad soo qaadanaya markaana waxa agnaa gabadhii cabaysay biyaha inay markaana ku sugan tahay xaalad daciif ah iyadoo markaas ay saameysay daroogadii waxaana markaas u imaanay professorkii laakiin gabadhii kale ayaa markaas u sheegaysa inuu professorkii u waco dhakhtar si markaas gabadhan loo badbaadiyo maadaama ay xaaladeedii ka sii dareyso laakiin professorkii ayaa midaasi diiday waxaana markaas la soo baxaya cirbadii uu hadaydii soo qaadanayay isagoo markaas gabadhii qoorta ka duraya markii uu gabadhii duro waxa uu bilaabay inuu casheeyo isagoo markaas iska qaadanaya jawigiisa laakiin markii ay gabadhii soo kaceen waxay markaas ku arkeen inay markaas ku xiriyeen sheybaarkii professorka waxayna markaas ogaadeen inay markaas sariirtii ku xirxiran yihiin marka labadoodii laga soo tago waxa halkaas ku jiray ninkaasna waxa uu ahaa dalawarkii gaarigii xamuulka ahaa kaasoo weliba uu professorka halkaani keenay markaana professorka ayaa halkaas ugu imaanaya isagoo markaas u sheegaya ninkii dalawarka ahaa in markaas la joogo waqti isaga uu bedeli lahaa ama uu dhiman lahaa waxaana waqti xadirkaasi bilaabaya inuu markaas ku durusun isla markiiba ninkii dalawarka markii ay saaqdo daroogadii halkaas ayuu ku dhimanayaa kadibna waxa uu meydkii dalawarkii ku aasayaa beertiisa markaana waxaan aragnaa isagoo nin indhayaar ah ka soo dejinaya gaarigiisa waqti xadirkaasi ninkaas waxa waa mid miir daboolan oo waxa uu ku duray suntii waxauna isla markiiba keenaya sheybaarkii isagoo markaas ka kicinaya ninkii indhayaarka wuxuu kala qaadaya indhaha waxaana halkaas la joogay labadii gabdhood markaana gabdhihii waxay dareemayaan cabsi aad u daran maadaama ay markaas arkayeen ninkii dalawarka oo lagu durayo suntii isagoo halkaas lagu dilay waxaana waqti xadirkaasi ka saaraya jahwaroorkoodii isagoo markaas isbaraya balse wuxuu u sheegayaa professorkii inuu isaga ahaan jiray dhakhtarka qalliinka kaasoo isaga hadda howlgab noqday waxa uuna ahaa dhakhtar waalan mid ka mid a xirfadihiisa ugu yaabka badnaa waxay ahayd inuu dadka isdaba dhigo noloshooda yacni iskama hariyaan iyagoo markaas isdaba soconaya waxaana tijaabadaasi ku soo sameeyay eeyo isagoo markaas isdaba dhigay
balse dhakhtarkaani walan waxa uu doonayay inuu qalliin ku sameeyo si la mid ah eeyihii uu ku sameynayay Jane iyo Liz ninkan Jabaneeska ah si oo markaas noloshoodii isugu xiro sababtoo ah unugyadooda maqaarkooda ayaa isku mid ah waxa uu markaas u sheegay wax walba isaga damacsan yahay mid la yaab kale uu sheegay ayaa ahayd inuu mar hore ka saaray seedaha jilibka isagoo markaas aan u ogolaan doonin inay cidna istaagto waxuuna doonaya inuu dadka oo dhan ka dhigo sidii eeyihii oo kale waxuuna doonaya inuu markaas iyaga isdaba dhigo si ay markaas isu daba socdaan waxuuna isku xiri doonaa noloshooda oo dhan labadii gabdhood ninka Jabaneeska waxay bilaabeen inay markaas aad u cabsadaan iyagoo markaas ka qalqalsan wax uu ninkan ku sameyn rabo waxaana markaas u sheegay inaysan jirin cid hadli karta markaana professorkii waxa markaas cirbad duuriya ninkii Jabaneeska ahaa waxaan cirbadaas aad mid keentay xaaladda miir la'aanta ninkii Jabaneeska ahna waa uu miir daboolmaya markaana Jane gabadhii kale waxay bilaabeen inay qeyliyaan markaana waxa uu doonaya inuu duro gabadhii Jane ahayd gabadhii Liz ahna waxay markaana bilaabaysaa inay markaas iska furto xirigeeda ku xirnaa waxayna iska furaysaa xirigeeda markaas soo istaagaysa waxayna bilaabaysaa inay halkaas ka dhaqaajiso laakiin cirbadii ku durnayd ayaa markaas jeexaysa laakiin waxay ku guuleysanaysaa in halkaas ka soo dhaqaajiso waxayna markaas soo galaysaa qol laakiin waxa halkaas ugu imaanaya ninkii professorka isagoo markaas soo jibinaya muraayada balse qolkii way ka soo cararaysaa iyadoo markaas soo galaysa barkada biyaha si ay markaan halkaan ugu badbaado waa uu ka daba imaanaya isagoo markaas u wata qorigiisa waxa uuna doonaya inuu gabadhaani soo afjaro balse ugu dambeyntii gabadhii waxay shiidaysaa barkada iyadoo ugu dambeyntii barkadii ugu soo bixaysa dhinaca kale waxay markaas u imaanaysaa saaxiibteedii oo markaas saaran sariirta waxayna soo qalaysaa saaxiibteeda iyadoo markaas miir daboolan waxayna keenaysaa banaanka iyadoo markaas soo jiidaysa laakiin waxaa tooganay professorkii isagoo halkaas ku suuxinaya markaana waxay dib ugu soo laabteen sheybaarkii waxaana markaana professorkii bilaabay inuu markaas ku sameeyo qalliinkiisii isagoo markaas doonaya inuu ka saaro seedaha jilbaha si aysan mar dambe u soconin waxaana markaas bilaabay inuu ku sameeyo qalliinkii isagoo xitaa ka saaray ilkahoodii waxaana markaana ku sameynaya qalliinkii kadib markii uu soo dhameeyo qalliinkii waxuu markaas imaanaya qolkiisa isagoo markaas iska cabaya khamri waxaana ugu dambeyntii u imaanaya saddexdii qof oo markaas uu ku sameeyay operationkii waxayna markaas ayeen kugu qaawan oo markaas faashad ku duuban tahay isagoo markaana qalliinkii ku xushnimada u dhameystiray waxayna markaas ayeen kugu isku daba jiro oo markaas miir daboolan waxaana u horumarinaya ninkii Jabaankaas oo markaas igu horkaco waxayna helayaan miirkoodii isagoo markaas muraato si ay markaas isku arkaan waxuu markaas bilaabay inuu cadaabo oo markaas uu ku xiro meel silsilada isagoo ugu dambeyntii ka soo bixiyay meesha waxaana markaas siinaya cunto waxaana markaas bilaabay inuu garaaco ninkii Jabaneeska ah kadibna wuxuu keenayaa beertiisa si halkaas ugu soo socdaan laakiin markaan labada gabdhood mid ka mid ah markaas arbaaxaysan ninkii Jabaneeska ahaa balse mid la yaab kale oo xushnimada ayaa ahayd inuu dadkii afkoodii iyo dabadoodii isku talay si ay markaas u kala foqin waxayna ahayd xushnimada uu dabeecadda ka dhigtay dhakhtarkan intaas kadib uu soo wadiyay isagoo markaas keenay sheybaarkiisa si uu markaas u baaro waxaana markaan ku soo laabanaya sheybaarkii isagoo markaas baaritaankiisa sii wada ayaa waxaa si lama filaan halkaas ugu imaanaya qolo booliis ah iyagoo markaas albaab u soo garaacaya sababtoo waxay maalmo badan waayeen labadii gabdhood ee Jane iyo Liz nimankan askarta gaarigoodan wuxuu ka fogaa guriga professorka laakiin professorka ayaa u sheegay askartii inuu aad u mashquulsan yahay uusan haynin waqti oo markaas iyaga kula sii taagnaado isla markiiba askartii way ka tageen iyagoo halkaas ka dhaqaajinaya markaana professorka ayaa imaanaya sheybaarkiisa waxaana markaan halkaas ka waanaya asxaabta halkaan la haystay halka ku ahayd laakiin markaan ninkii Jabaneeska ayaa markaan ninkii professorka lugta ka taagay midi isagoo markaas haddana lugta kale ka taagay midi kale ninkii professorka waa uu dhacaya isagoo markaas mididii kala baxaya markaan ninkii Jabaneeska labadii gabdhood waa ay soo dhaqaajinayaan iyagoo markaas soo fuulay jaraanjarta balse waxay ahaayeen kuwa isku dhagan mana sahlan inay markaas fuulaan jaraanjarta waxaana isla markiiba soo daba kacaya ninkii professorka ahaa isagoo markaana doonaya inuu ugu dambeyntii dilo ninkan Jabaneeska markaana ninkii Jabaneeska labadii gabdhood waxay markaana yimaadeen muraayada waxayna markaana bilaabeen inay muraayadii jibiyaan laakiin ugu dambeyntii waxa ka daba imaanaya ninkii professorka ahaa laakiin ninkii Jabaneeska wuxuu markaas isku qaliyaa muraayad isagoo halkaas isku dilaya waxaana markaana qeyladaas maqlaya labadii nin oo askariga ahaa wayna soo baxayaan iyagoo markaas soo qaadanaya biskooladahoodii waxayna markaana bilaabeen inay markaana raadiyaan shaqartii ay maqlayeen labadii askari mid ka mid ayaa markaas arkay asxaabtii isku daba xirneed aad ayuuna ugu naxayaa markuu arkay dadkaasi waa uuna soo dhaqaajinaya isagoo markaas si naxsan balse intuu halkaas socday wuxuu halkaas ku arkaya dhiig tiro badan laakiin waxaa halkaas fadhiyay ninkii professorka ahaa isagoo markaas biskoolada haysta waxuuna isla markiiba tooganaya ninkii booliiska ahaa laakiin ninkii booliiska ahaa ayaa u dabamaranaya isagoo markaas madaxa ka tooganaya waxaan halkaas ku dhimanaya ninkii professorka ahaa sidoo kalena waxaa halkaas ku dhimanaya labadii nin oo askariga ahayd waxaana markaan halkaas ku hariyay labadii gabdhood oo kaliya kuwaas oo weliba isku daba xiran waxaana markaan halkaas ku dhamaanaya filimkii haddii aad jeclaysataan waxaan ku soo dari doonaa qaybta labaad maanta muuqaalkan intaas ayuu ku egyahay intaan muuqaalkan mid ka xiiso badan kulmi doono sidaas iyo nabadiino